nagu soo dir oo ka mid noqon saaxiibada nagu xiran inkasta oo kiiska Iran Tani Faarax uu si weyn baaha u ka qaaday ismaandhaafka farmaajo iyo Roble haddana waxaa la fahamsan yahay inaysan labada nin isku wacnayn muddo dhowr bilood ah waxa ugu weyn ee la isku fahmayo ayaa lagu sheegay arrimaha doorashooyinka ee dalka hadda ka soconaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la diray wasaarihiisii hore Xasan Cali Khayre isaga oo ka careysan dhinaciisa kursi doonka ah wuxuu laba bilood raadinayay qof aan ku soo gajeeraynin oo aan musharax noqon doonin haddii uu wasaare magacaabo in muddo uu raadinayay kadib waxa uu soo helay wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee haatan ishayaan Maxamed Xuseen Roble kaas oo kolkii la soo magacaabayay si aadan loo naqdinayay lagula tilmaamayay shakhsi furin doona danaha gaarka ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mucaaradka ayaa u arkayay Roble waqtigii la magacaabay inuu yahay shakhsi markaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si aad u soo arkay laakiin haatan mucaaradku waxay u arkaan haliyey iyaga garab iyo gaashaan u ah oo diiday dulmi la sheegay inuu wado madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Roble oo malaha qaatay heshiis noocaas ah ilaa hadda waxa uu diidan yahay inuu u tartamo xilka madaxweynaha balantii ahayd ha is-sharixin iyo aniga dhis waxaa ka dambeeyay dagaaladii ka dhacay Muqdisho waxaana awoodii doorashada cadaadis badan kadib iska wareejiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo awooddaas uu wareejiyay madaxweyne Farmaajo waxa ay fursad xooggan u noqotay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kaas oo ka faa'iideystay fursadaas cajiibka ah waxa uu si markaasi xilkasnimo ah u la wareegay awoodda isagoo uu ku guuleystay inuu magaalada Muqdisho ka saaray ciidamadii badbaado qaran ee soo galay kuwaas oo diidanaa muddo kordhin madaxweyne Farmaajo uu samaystay inkasta oo uusan Roble ka bixin ballantii musharaxnimada haddana waxaa si weyn isku bedelay jadwalkii uu Farmaajo u qorsheeyay dib u doorashadiisa maadaama Farmaajo uu isku bedelatay arrimo badan oo doorashooyinka la xiriiray balse intaas oo waxa uu ku dhiftay oo meel cadhigay Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta kaas oo u arkay qorshayaasha uu wata madaxweyne Farmaajo kuwa diraya sumcadiisa oo hadda ay muhiim tahay inuu ka gaashaanto Roble oo talooyin muhiim ah la siiyay ayaa qaatay in markaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aanu waqtigan diyaar u ahayn in dalka doorasho ay ka dhacdo isla markaana uu danaynayo in wax waliba seegseeg iyo isdoomarin lagu dhameeyo arrintaas ayuuna si cad u diiday oo gaashaanka ayuu duriyay Roble u muuqan waqti dheer nin raba inuu Farmaajo dakana u galo oo uu doorashada u boobo tan markii uu Roble muujiyay inuu yahay siyaasi dhexda ka taagan loolanka doorashada waxaa kor u soo kacday rajada dhinacyada kale ay ka qabaan maadaama markii hore laga baqanayo inuu noqon doono shakhsi garab iyo gaashaan u noqda oo u xaqliya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Roble ayaa si aada haatan waxa u noqday siyaasadiisa xubnaha ka soo horjeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo uu qaarkood ku tilmaama shakhsi markaasi qabiil ay qaaday oo mucaaradka dowladda garahan Farmaajo oo u badan hal beel oo ka soo jirintooda badan hawiyey uu garab noqday arrintaas waxaa si aada baraha bulshada u wareejinaya Farmaajo marnaba ku maqancin doorka uu Roble albaabada ugu wada furay tartamayaasha waxay ahayd sunno soo jeeda inuu mar walba madaxweynaha xilka haya dacwo ku yeesho sida ay doorashadu socoto laakiin hadda waxaa taas uu ka noqday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo daawado arrintan ayuu u arkaa mid saameyn xooggan ku yeelanaysa Roble waxaa si aan rasmi ahayn loogu arkay inuu daacad u yahay Farmaajo oo isagu dhisi doono xitaa Farmaajo waa si aamini karay arrintaas laakiin wixii ka dambeeyay wadahadalkii Roble uu la furay Sacuudiga Imaaraadka Kenya Farmaajo waxaa la sheegay in uu laabta ka xirtay wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaana uu si cad kaga quustay tallaabooyinka uu qaadayo taas oo meesha ka saaraysay dhammaan ballamihii hore ee lala galay Roble ballamaha lala galay waxaa ka mid ahaa in markaasi uu qayb ka noqdo oo la dib u doorashada wasaare Maxamed Xuseen Roble Roble ayaa sare isu shareeray markii uu dilaacay kiiska Iran Tani Faarax hadda labada nin waxa ay kala fogaadeen masaafo aad u dheer si walba oo hadda loo xaliyay khilaafkooda way adagtahay in Roble lagu qanciyo inuu Farmaajo dhiso ama inuu mar kale Farmaajo aamino Roble sababtoo ah waxay noqdeen laba nin oo meel sare kala jooga isla markaana ballamihii iyo heshiiskii iskaga baxay taas waxaa ka dhigan tahay in markaasi uu gorgortan ka galo arrinta qadiyadda kiiska Iran Tani Faarax
arrintaas sida aadka cirku soo shareertay ayaa waxa ay tahay markii uu Rooble sii qaaday tallaabooyin uu shaqo joojin ku sameynayo agaasimihii hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah shakhsi saameyn badan Bashir Goobe uu magacaabay xilka taliyaha hay'adda iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo wasiirka amniga laga dhigay dhowr jeer ayaa farmaajo lagu eedeeyay inuu fashiliyay wadahadallada xaldoonka ah sababta kaliya ma ahan inuu difaacayo Fahad Yaasiin ee sidoo kale uu farmaajo xoogga saaraya inuu gacanta dib ugu dhigo maamulka doorashada waa adag tahay inuu farmaajo aqbalo inuu bannaanka ku sugo natiijada doorashada oo uu marti ka ahaado ayay leeyihiin dadka sida fiican u yaqaan habdhaqankiisa siyaasiga ah marka laga eego ahmiyadda maamulka doorashada ku fadhiyo waxaa adag in si fudud ay ku dhamaato xiisada taagan maadaama tani ay tahay mid cirka isku sii shareerayso oo shakhsi waliba uu diidayo in uu tiisa ka tanasulo farmaajo uma badna inuu aqbali doono inuu galo doorasho uusan wax tiro iyo awoodna ku lahayn xubnaha waa ku adag tahay inuu dib u celiyo maamulkii doorashada uu madaxweynaha u wareejiyay baarlamaanka hortiisa tallaabooyinkan ayaa waxa ay yihiin laba arrin oo isdiidan islamarkaana kala jooga laba heer oo si aad u kala fog sidoo kale saamilada kale ee siyaasadda ayaa iyagana la aaminsan yahay inay ka hor imaan doonaan in mar kale la bedelo maamulka doorashada waxayna ka dhigan tahay arrintan inaan si fudud loogu gudbin xiisadda labada nin hortaalla arrimahan ayaa dhammaantood muujinaya in xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee dalka ay tahay mid waqtigan aan la dhawaasan karin kooxda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxay sheegeen inay u sawiran tahay natiijo guuldarro ah haddii ay galaan doorasho uu Rooble maamulayo iyadoo la wada ogyahay wixii dhex maray muddooyinkii lasoo dhaafay waxayna aaminsan yihiin inay qasab tahay in miiska maamulka doorashada dib loogu laabto islamarkaana lagu celiyo gacanta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo tallaabooyinkan ayaa noqonaya mid markaas suuragelaysa sidaan horey idinkugu sheegnay waxaa xalay farmaajo uu sheegay in hadrajeedinta doorashada aqalka sare ee Somaliland la joojiyay dibna loo dhigo muddo aan la cayimin taas oo ah howl uu ka shaqeeyo farmaajo heshiiskii dagaalka dheer uu baxay Rooble ciyaar kale ayaa maanta u muuqda inuu qarka u saaran yahay inuu burburo fila Soomaaliya ayaa loogu yeeray odayaal ka soo jeeda Somaliland oo la marsiiyay in la joojiyay hadrajeedintii ku aadan kuraasta aqalka sare ee Somaliland waana dhibaato uu si joogto ah uga shaqeynayo farmaajo inuu ku dhex furfuro dhibaato dadka Soomaaliyeed aan anfacin guddiga doorashooyinka waqooyi Somaliland ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dibdhac uu ku yimid haqaaca doorashada aqalka sare ee gobolka waqooyi 12 September oo maanta ku badan oo loo balansanaa musharaxiinta in khudbadooda dib loo dhigay qoraal ay ku yiraahdeen waxaan ku wargeynaynaa dhammaan musharaxiinta iska diiwaangeliyay tartanka doorashada aqalka sare ee Somaliland inuu dib u dhac ku yimid hadaljeedintii biri ay lahaayeen musharaxiinta dib ayaan ka soo sheegi doonaa waqtigan halkan waxaa ka muuqda xitaa inaan waqti loo qaban waxaa caddaynaysaa in farmaajo uu joogo inuu hadda kala furfurayo arrimahaas tan koowaad waa in doorasho la qabto tan labaad waa ammaanka dalka oo xitaa intii uu Fahad soo noqday waxaa dhacay qaraxyo waaweyn kuwaas oo kula faayay markaas ay kula faayeen dad badan oo shacab Soomaaliyeed ah nin shirbay oo u adkeysan waayay wixii dalka ka dhacayay ayaa markaas wuxuu yiri dalkan dowladda Arabiya waxaa si diidan dhul qarsoon hadda taas mid lamid ayaa taagan sida ay sheegayaan xilligaadka sida aad ka garanayaan arrimaha siyaasadda ee Rooblega